بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أما بعد maanta waxaanu cilaaminaynaa macad online oo aan furnay goobtan haddaan ka soo hadlaynana waxaa weeyaan xerada qaxootiga dhagaxley khaasatan masaajidka weynaa ee muslim ee dadka muslimiinta ah ilaahay subxaana wa tacaala khayr ha siiye ay dhiseen macadkaasi ofiska ama xafiiska ama maktabka macadka online-ka ayaan ku dhex jirnaa meeshaas ayaan hadda inaga soo hadlaynaa insha allahu tacaala ikhwaani waxaan furnay macadkaas oo daraaso fara badan ay ka bixi doonto maanta waxaad ogtihiin adduunka ama caalamka waxaa jiro cudur aada u faafay cudurkaas daraaddii waxay keensatay dadkii inay u bataan baraha bulshada inay ka qaataan daraasada online-ka ah sida whatsappka sida zoomka sida barooyinka kala duwan in laga qaato daraasadii waxaa weyaan diiniga ahayd ayadana anwaacdeeda kala duwan macadka machad alu sayid online macadkaas baan insha allahu tacaala aan ku faahfaahin doonaa macadkaas baa maanta isku taagnay inaan baraha bulshada aan waxaa weeyaan dadka aan u sheegno macadka inaan furnay macadkaasi waxaa ku diyaara macalimiin u tababaran qaabka online-ka inay wax u gudbiyaan macalimiintaay waa macalimiin takhasusaad ku leh inay bixiyaan insha allahu tacaala macadkaasi waxaan bulshada soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay kasoo qayb qaataan macadkaasi daraasadiisa dal iyo dibadba waa u furan yahay xilli kastana macalinkii lagugu soo hagaajiya diyaar buu u noqon doonaa inuu daraasada ku siiyo waxaa kale macadka waxyaaluhu bixin waxaa ka mid a ama adeegyaasha uu dhiibi waxaa ugu horeeya qur-aanka kariimka ah muraajacadiisa xifdiskiisa iyo farbarkiisaba intuba macadka uu bixinaya waxaa kale siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo iyadana si fudud lagugu siin waxaa kaloo ka mid oo macadka uu bixin doonaa tafsiirka qur-aanka kariimka ah waxaa kaloo macadka uu bixin doonaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala xadiidka nabawiga ah waxaa kaloo xadiidka uu bixin doonaa cafan uu macadka bixin doonaa online-ka ah waxaa weeyaan luqada carabiga iyo anwaacdeeda kala duwan sida naxwada sarfiga balaaqada adabka kolba qof walba wuxuu u baahan yahay macadkaasi asagoo raalli ah ayuu ka tegi doonaa insha allahu tacaala waxaa kaloo igaga dambeyn doona barnaamijkan khatimkiisa sheekh shamsudiin insha allahu tacaala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه أما بعد إن شاء الله تعالى سدا uu sheegay Sheekh Cabbaas waxaa jiro macadka Alu Sayid online waa macad furan waxbarasho ka socota diyaar ah maalin iyo habeen 24 saac saacadii loo baahdo waa macad ku diyaarsan macallimiin aqoon u leh diinta islaamka iyo tababarida ilmaha iyo dadka waayeelka labadaba ilmaha kaliya ma aha hadda waxbarashadii xanuun baa yimid caalamka oo yar kala xidhxidhmay aqoontii hoos bay u dhacday marka ilaahay wuxuu inoo fudaydiyey subxaanahu wa tacaala qaabkan wax u baran lahayn qaabkii wax loo gudbin lahaa wuu inoo sheegay subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid ah qofka isagoo adduunka meesha u dambaysa joogo in gurigiisa ama gaadhigiisa dhexdiisa lagu siinayo cashirkii uu doono macadkaasi waa macad aad u qiimo badan oo muxuu ahaaye dadka qur-aankooda lagu saxayo caqiidadooda lagu saxayo fiqigooda lagu saxayo akhlaaqdooda lagu dhisahayo marka haddee ilmaha yaryarkaana waa mustaqbalka islaamka oo dhan in ka dhala iyo ninka kaleba ay ka qayb qaataan ilmaha waxbaridooda waa arrin waajib oo na saaran
marka macadkan macaahidda kale waxyaabo badan buu kaga duwan yahay baan isleeyahay anoon aad u ammaanaynin. waa macahad aad looga fakiray qaabkii dadka wax loo bari lahaa. waa dadka wax baraya waa dad aad loo xulay oo ilaahay daraaddii iyaguna isu keeneen. duruustana waa la idiin sheegay waana la idiin sheegi doonaa. qur'aanka ugu horeeyo, siirada nabiga ku xigto, axaadiista ku xigo, fiqiga ku xigo, tarbiyada oo nooc walba ayaa raaci doonto insha allah, luqada carabiga ahayd. marka insha allah dadka dalka iyo dibaddaba jira labadaba in ay ninkii u baahan ilmihiisa inuu wax turaas dhaxalgal ah u helo oo si fiican wax loogu baro, carabka nudqiga iyo tarbiyada labadaba laga dhiso. macad loo diyaariyey oo u diyaarsan weeye. dadkana waxaan ugu baaqaynaa in ay ka soo qayb galaan. marka insha allahu tacaala waadna ku qanci doontaan insha allah mucallimiinta iyo duruusta ka baxda labadaba.